السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما صاحبة الصوماليات ملكة سؤال جوكتان يسكر صعود داوليسان حلو ونكسن موضوعه لما انتي وحوكو سابسن يهي إما شح مدحوين معاه عبد الله فرماجو وقور ويتسو غاري مقالة مقدش قوب كاس أيينو كهذا دونا وحينو يرى اسدول تاجي دونا كواحد حسن محمد على السوق أو شوان كل عي وريري حالينا اسكول حياعي أو حيابا بينه سوق ليه سوق كله waxaynu ka hadli doonaa iyagana anagoon aad ugu fogaan kuwo madaxweyne maxaa Cabdullaahi Farmaajo uu dad ka dhigay oo iyaguna isu soo mutaxay masayr miyahaya ma weerarsan yihiin ma ogi qof walba kursigeeda ayaynu ku fadhiisin doonaa ugu dambeynna waxaan ka hadli doonaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo markaasi madaxweynaha salaan u saaray markay arkeen inuu garoonka ka soo degay taasna dadka qaar ay xogaa comment aan wanaagsan ka bixin leeyihiin warinku madaxweyne maahe maxay ka wadaan waxa weeye iyadana sababta ayaan idin sheegi doonaa adiga mas'uuliyadiinu waxa weeye muuqaalka inaad like saartaan siina qaybisaan waaya madaxweyne maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu soo gaaray magaalada Muqdisho wuxuuna ku yimiday sidii ay u qorshaysay nabad iyo nolol qorshaha madaxweynaha marna kuma jirin sidaan hore idinku sheegnay in dad fara badan la soo bixiyo umada la cadibo oo dhadiga loo istaago isagana diiday wuxuu yiri mas'uul Soomaaliyeed baan ahay hada kursiga kuma fadhiyo dadkayga yaan la dhibin waxaadna ogtihiin isagoo kursiga ku fadhiya oo madaxweyne ah ayuu diiday in garoonka loo dhoobto oo tartiib uu bixi jiray tartiibna uu soo geli jiray isla dhaqankaas ayuu doonayaa madaxweynuhu sii wato kooxda Xasan Sheekh Maxamuud waxaad ogeydeen ayaan dhaweyd inay warqad soo saareen kadib markay maqleen xal ah in madaxweyne Farmaajo imaanayo inkastoo markaasi specific time aysan helin warqadii markay soo saareen waanu ka hadalnay oo waxaan niri war qorshaha madaxweynaha kuma jirto in dad shacab ah airportka la dhoobo intaas markay maqleen warqadii dib bay ula laabteen laakiin xalay mar kale waxay suuqa soo geliyeen been ah dadkii guddiga ahaayee u xil saaraa in maaragtay dad soo dhaweeyay madaxweynaha ay u diyaariyeen baa dadkii waayeyo madaxweynuhu wuxuu go'aansaday tiimkiisuna ay isla qaateen inuu si tartiib ah ku yimaado taas waa tii hore loogu qorshaysnay waxaan rabaa marka ummadda Soomaaliyeed inaan tuso kooxda Xasan Maxamed Cali soo caqligooda inuusan 1 sentimitir qodnay oo hataa been haddaad sheegayso waxa weeye waxaa la sheegaa wax macquul oo dadka geli kareen dadka ay u sheegeen been qayaxan ka soo qaatiin haddaan idin raacno oo nila madaxweyne Farmaajo shacbiyadii uu waayay oo dadkii Soomaaliyeed way diideen de madaxweynuhu geed kama dhalan ee dad buu ka dhashay oo waa nin Soomaali magaalada Muqdisho madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo dadka liska daaya hadii uu wargeliyo jufada hoose oo ka dhashay reer diini way soo bixi lahaayeen lambar 4 ilaa iyo airportka loo isku xirmi lahaa waxa laga aragtay xun aaminsan tahay oo magaalada Muqdisho hawiye kaliya jooga reer diini waa jufo hoose way ballaariin runtii laakiin waa jufo hoose 5 kala tirsan kuwa uu abtarka leer iyagaas hadduu yiraahdo biri ismoojiya lambar 4 ilaa iyo maxay airport ku xirmi lahaa ka soo tag isaga marwada madaxweyne maxamed Cabdullaahi Farmaajo Seyno Cabdi Macallin mursada iska daayay sabti iska daayay majaba sabti iska daayay abakar hadii tii war biri odaga la soo dhaweeyo xamar oo dhan baa dhaqaaqi lahayd waxa la isweydiin lahaa war magaalada dadkii joogay talo wax ma ka haray sababtoo ah waxa weeye dad mar kasta u heelan buu heli karaa madaxweynuhu hase yeeshee labada aan soo sheegaba hadduu madaxweyne Farmaajo u baahdo inuu bulsho soo saaro baahi gaar u qabo sababtoo bulshadii Soomaaliyeed baa taageersan waxaana dhici lahayd hadduu oran lahaa shacabka soo baxo in geeriyu ka dhacdo sida showgii Michael Jackson ku qabtay Shiinaha Michael Jackson ninkii loo jiray ahaa fanaanka baa la yiri hadda koor wuxuu show ku qabtay dalka Shiinaha 4 milyan hool qaado Kristi deedna hoolkii waxaa soo galay 10 milyan Shiinihii gaagaabna way iska dul baxeen kumba dhimatay waxyaabaha madaxweynuhu uu u diiday in bulshada la soo bixiyo taasa kamid ah sababtoo ah madaxweynuhu inkastuu mucaarad yahay haddana amniga dadka iyo systemka dawliga labadaba inuu ilaaliyo rabaa magaalada inay khalkhal gasho dad aad u tiro badan soo baxo
waxa weeye la isbuurto madaxweynuhu marna ma doonin oo waxa weeye shalay markuu madaxweynaha ahaa iyo maantuu bannaanka joogaba nidaamka dawliga iyo shacabka amnigooda intaba uu ka fikiraya reer xasan maxamed cali sow intaasaan leeyahay hadda kadib haddaad wax soo abaabulaysaan wax macquula damiinaadtiin waxnama culisaane ummadda la hor imaada taa aan ka gudbo rag ka mid a raggii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo abaalka ku lahaa ee isagu uu dadka baray baa ka mid ahaa dadka xala beenta ee barabagandada qorayay waxaad mooddaa in raggaasi ay ka shallaysan yihiin qaab ay uga laabtaan dembiyadii ay galeenna aysan oqoon ninka la yidhahdo caliyaro cali oo annagu aynaan oqoon madaxweyne farmaajo ka hor laakiin farmaajo u yimiday isagoo toxob leh haddana korkiisa aad ka subkanayso baa ka mid a ragga xalay baraha bulshada beenta ku qoray cali waxaan leeyahay caliyow madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo adigoo kale inaad comment negative ka bixiso ma ahay sababtoo ah abaal buu kugu lahaa adigoon waxba ahayn wax kaa dhigay waa ninkii ku siiyey guddoomiye ku-xigeenka amniga ee gobolka banaadir weligaa maad noqotay waayahay shaqo xumo iyo qaabdarro adiga taada ayaana tiimka lagaaga saaro waxaa tahay ninka keliya ee tiimka nabad iyo nolol warqad looga saara declaration bax layidhi adigu naga tag habdhaqankaaga foosha xun awgii waxa weeye marka maadaama abaal kugu leeyahay nabiga sala allahu calayh wasalam la yidhi man laa yashkuri innaas laa yashkuri allaah waxay ahayd madaxweynaha inaad u abaal hayso ood ka gambato waxyaabaha aad qoraysa yahay xalay markaa arka qoraalka uu soo qoray barobagandada ah erayaa igu soo dhacay sababtoo ah dadka halabuurka ah waxa weeye waxaad mooddaa sometimes inay psycholojiyada barteen oo ay qofka dersi karaan waxa ka dhex muuqda waxaan qoray marka eryadaanan qoray dadka facebook way arkeen inta kalena hadda ha aragtaan leeyahay waxaan idhi booxaan shablayntiyo hadda bila kufaankiyo isballaarin fara badan basharkii aad ku aragtaa waa badow daciifo barashada ku liito buufis buu qabaayo meel baa bannaano buuxi buu isleeyahay balse ruux baraadnagii anaa buurka weyn iyo bidhaantayda arag iyo been uma bareero bulshadu uma faano hadda meel ubood iyo isbuunbuunin fara badan baahi weynba uma qabo waxa weeye haddaad aragto qof leh waxyaabaha qoraa waxaa ka mid ahaa berigii oo maaragtay 2012 saasaan yeel 2016 saanaan yeelna yacni waa anigaa meesha ka maqan waxa weeye nin raba inuu sheego carabtu waxay tidhaahdaa man madaxa nafsuhu faqad faaqida haybatu kelmadda faqada waa weyn qofka naftiisa ammaanay waa qof haybadiisii waayey ama sharaftiisii qof isyasay weeye oo isla isbuux meel baa bannaanoo buuxi buu isleeyahay meesha iiga soo baxda weeyaan waxa weeye marka caliyow haddaad maaragtay rabtay in lagu yeero oo aad tiimka ka mid noqotid taas adigay kugu xiran tahay kollay dembiyaad gashay oo waxa weeye tiimka sabab la'aan lagaagama saarin madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajona waad garanaysaa adigaa lagaa rabaa inaad madaxweynaha intaad la xiriirto waa saaxiibkaa waad garanaysaaye aad tiraa madaxweyne sorry waan khaldamay tiimkii in laygu soo celiyo baan la doonayaa waa nin naxariis badan waa nin dulqaad badan u malayn mayo inuu ku odhanayo caliyow ha ii iman hadday kugu adkaato adigu aad weji gabax dareemayso dulmi aad geysata awgii aniga isoo mar anigaa kuu geynaya oo le madaxweyne fursad kale si uu kuula shaqeeyo calina intaasaan uga gudbaya waaya waxaad arkaysaan ciidamada qaranka qaar ka mid ah oo madaxweynaha markay arkeen salaanta la jacariirsaday kuwa doqomaha waxba kala garanayn oo waxaa arkane yaa madaxweyneba maahe salaanta waxay ugu saaraya ma ogi xasan macali dheer ka keena waa reermiyi waxaan leeyahay ciidamadu waa bashar waa bini aadam waa kuwa ilaahay yidhi walaqad karramnaa bani aadama ilaahay baa karaameeyey caqli bay leeyihiin ee xayawaanka caadiga ah ee bahaahinka ah baa garanaya cidda wax u gashay libaax waxaa la yidhi nin ganay iyo nin galladay kala garan og madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo xukunka wuxuu yimid ciidamada iyadoo xasan bahdilay oo uu ku yidhi lacagta xumoodhinoo bixinaa $100 minaysa idaafici iska tag idinma rabno iska bax
bahdilkaas iyadoo xasan kula hadlay 9 biloodna ay ku leeyihiin boqolkii xataa uu ku bahdilayay lahaa haddana iscanka taga uu siin waayay baa waxa yimid madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo muxuu sameeyay durbadiiba iyagii uu habeeyay nidaamkii electric uu marsiiyey markuu diyaariyey ayuu yiri mushaarkiinu waa imisa markaasay dhaheen waa $100 ma $100 ha times 2 labaan idin kugu dhuftay $200 buu u qoray boqolkiiba boqol weeyaan xasan sheekh maxamuud maanta 3 sano iyo bar baa u dhamaatay boqol kale ma ugu dar may uguma dar maanta waxay ahayd ugu yaraan $400 ciidanku inay joogaan uguma darin intoodii ayuu ku hayay saadaashuna hadda waxay sheegaysaa haddii xasan sidaan u sii madax adeego mar kale inay mushaarka waayi doonaan ciidanka waxaan leeyahay war waxaad tihiin bini aadan ilaahay karaameeyey madaxweynihiinnii abaalkaas idiin galay horta inaad soo dhowaysaan ood ku mahadsantihin laakiin waxaan leeyahay intaasaan ku siminaya ilaahay barya in ilaahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo kursiga mar kale ku soo celiyo si mar kale lacagta uu kuu kordhiyo insha allahu tacaala waan ku kalsoonahay waana rajaynayaa hadduu soo laabto mar kale ayuu odhan doonaa times 2 markaasaa dabluhu $400 ka bilaabi doonaa mushaarka wuu idin jibbaari doonaa insha allahu tacaala mas-uuliyaddaas uu ku baraarugsan yahay madaxweynuhu waxyaaba kaxiya soo bannaanka joogay ka mid tahay in ciidanka aan lacag loo kordhiyo marka waxaan leeyahay ilaahay barya inuu idiin soo celiyo mar kalena uu mushaaradiina idiin kordhiyo idina dar yeelo oo markaasi niyaddiinu ay dib u soo laabato barnaamijkayga intaasaan kusoo gabagabeynayaa hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu